waxaan ku balansanay ilaa hotel inaan macnaha ku qabsano xalfad oo aan waqti ku qaadano farxad joog ku qaadano kabacdi saas ay ahaato waana laga qasay anagoo qarash soo gelinay soo dhisnay macnaha u soo diyaar garoonay farxad inaan qaadanayno calankayga quruxda badan aan jecelnahay oon ku soo labisanay saas ay ahaato askartii waxaan kala kulanay inay calankii quruxda badnaa ee tawxiidka ku qornaa xitaa kama xishoonin way ku joogsadeen hortayaday ku tuureen macnaha way ku tunteen oo kaandharka aan xidhnayn istaanta noo aan xidhnayn heer ay gaadheen waan kaa bixinayn halkaas isku qaawinaysaa saas ahaa waan iska dhaafay kabacdi markaan qaawinaysaan aan ku dhahay waan macnaha maxay tole adee dharkii aan iska xidhnaa igama bixin karaan markaas meeshii baa aaday oo waxaan ku dhahay xaggan geliyaa heer waxay sameeyeen intay soo halkaa iyo halkaa ay kasoo mareen dhahan qof Soomaaliland meesha ma joogi karo macnaha wixii Soomaaliland guryahooda ku laabteen markaas anigu waan diiday mana laabanayaa ku dhahay inay maxna halkaas aan joogaya xeebtida si joog ku qaadanaya hada farxadii iyo joogi kale ay ka qasteen saasaan ku dhahay way diideen macnaha qoriba ay soo qaateen xitaa ay ugu fureen ay ugu dhahay waan ka dhex saaraynaa meesha calanka ku sidatay maxaad noo af Soomaali aad u khaldan oo aan ka sheegi karin oo wallahi markaan soo xasuusto ay xitaa ii cabaysteen qoriga ugu dhaw ugu dhufanayna macnaha anigu waxa dhahay markaas calankayga quruxda badan leh hadii aan u dhimanayo igu dhufta baan ku yiri kan ma bixinayo waan ku dhimanayaa baan idhi waan ku dhimanaya ma bixinayo laakiin kan watay aan gacmaha ku watay way iga qaadeen ki dharka ay ahaa bas baa ay soo hadhay kaasna way anigoo hadana si kasta ii galayaan way igu joogjoogsaneen ki kala dhulka ku daadiyeen marka wallahi xalay wuxuu igu dhacay ma ilaabin aad baan ugu waxa saa noo galeena farmaajo wuxuu soo diray oo ka dambeeyay bay ahayd anaga macnaha madaxda hawiye xitaa qayb ay naga lahayd ma sha Allah si wanaagsan baan ugu hambalyeynayeen alxamdulillah waan taageersanahay anagu hadaan dhalinyarada reer Soomaaliland boo shacabka reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland halkan jooga aan nahay waxaan macnaha hadii arinteeda laga hadli waayo ambaba raali gelin laga bixin waayo garab baan muujinayna waan isku tagaynaa wadankoodana waan uga baxaynaa hadii saan noqoto macnaha fahanteen markaas banaan wax baa sameynayna ambaba mood wadankooda uga baxaynaa wadankayga quruxda badnaaba ku laabanina ruuxaantii aad baan u xareysanay wallahi maanta waan salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim aniga horta magacaygu waa Sharmaaka Salaamaan Cali waxaan halkan ka muujinayaa ama halkan ka cadeynayaa warbaahinta madaxa banaan aan u sheegaya wixii xalay tolina soo gaadhay anagoo diyaarsan farxadeeda noo gaarka waxa wadankan la nimi dadku hadday wadaagayaan waxa weeyaan wixii dadku ay wadaagayaan in la isku tixgeliyo anagu dawladii hore iyo dawladda nimanka qiimeynteedu isugu mid ma aha sababtoo wixii xalay nagu dhacay baa noo cadeynay inaan isku mid ahayn taa waxa keenayna waanu aragnaabo xalay anagoo farxadeeda u diyaar garoonay horena u qabsan jirnay imikana hadaan warwar qabno nin og in dhibaato soo gaadhayso dhib ma doonaya oo ma jawaabto waxa weeyaan hadaan meesha anu dhib ka ognay qofna dhibaato cagiisa kuma doonto meesha waxa ka dhacay wax aad u cajiib badan feer jilib jaqal qori dabadii waxa nalagala xishooday may jirin taanu qadiyadeeda iyo qarannimadeeda muujinay garbahan oo dhan baa nalaga jijibiyay hadaan ragnay dumarkana maryaha lagala baxay أنا ما حشون ولا الوجه توكسدي أنا كي يوحي أنا سيدنا يو توحيد كينا دول خال الله قلا مركا أنا ودي قديد دي قرني ما دي ملك استو أنا تشوق نبع ونكموتشنا تام رئيس ومال لنا أنا وحبنا يوم قلنا ده كدولة كتير الصومالية الصومالية أنا وح كله وداعنا ما هم مقولات سامي غيبس دستورك الصومالي كجرتا إن سومالان أنا وطن هاي لكن أيوه كل قيبسته قاب وطن دستورك الصومالي هي كجرتا قصوى أنا اللي هين بدلان من اللي هين جبلان دام معمولة أنا يد معمولة أصلا هير كون على حساب الله لكن هير كانوا حقوق قيبسنا هير عالمي ودب أجد بقرن سومالان دب أجد بصارن مركها قرن مضيدا ومقدس meel kastoo aan joogna waan ku dabaaldegna anuu shakhsi ahaan intaan halkan joogay laamiga talax baan ku qabsaday xitaa anuu kaliya qarnimadeeda muujinaya shacabku isma diidana
xitaa somaliland waan la hadlay madaxweynahayga Muuse Biixi waan quudhay clipka mar baan ku tusi doonaa haddii aad aragtayna waad aragtay waxaan ku uhi Muuse Biixow dadku ha kala kaxayn isaga laftiisaan la hadlay kan imika joogana waxaan leeyahay war shacabka ha kala kaxayn farmaajo ha kala kaxayn shacabka saan Muuse Biixi Muqdisho uga dhexleena ha kala kaxayn annagu keebaan la coloobina se keebaan la heshiina labaduba inay heshiisna la noqdaan baan doonaa dadkuna ay heshiiyaan waxaa imika isaga sharaf u ah dadka reer Somaliland ee joogay Muqdisho ayaa maanta ku dabaaldegay Muqdisho sababtoo halkaa waxa ka cadaanaysa inaan dadka kala maqnayn Muuse Biixi laftiisu wuxuu oranayaa dadkaaga sida loo qiimeynayo dadkaa kale u qiimey inta badan dadku waa cawda cabashadana dee adigu wallaahi anugu ma garanayo si wuxuu eegin siyaasaddana aada ugu maalmilmin wixii xalay aan doonayeyna waa laygu soo dilayba anigu Somaliland baan doonayay imikaynantan dhinacayga fadhida waxaan u malaynayaa dee dhibka u badanay gaadhay iyadaa sheegi doonto laakiin anigu waxaan ogayn horta inaan isweynay meeshan aan wada tagnay aniga iyo iyada iyo qaar kaloo badan iyo weliba malaayiin dee qof aan hayno dadka reer Somaliland dad la koobi kara maaha demokrat dad aada ugu fara badan baan meesha ku tagnay meeshana waxaan ku joognay badan dhalinyaro metelaysa reer Somaliland jaaliyad ahaanna waan ku tagnay Muuse Biixina waxaan tusinay dadkiisu meel kastaba ha joogaan in qarannimadiisa iyo dowladdiisa iyo dadkiisu meel kastaba joogaanba ay qiimeyntu qarannimadu qof walba guudka ka saarantay idigu waxaa maqasheen guudkan ka weydaayo annaga qarannimada guudkeen naga saarantay waddankana sidaan wax u qaybsanno waan naqaanaa farmaajona waxaan leenahay nagax shood baan leenahay farmaajo haddaad nagax shoon weydana waxa weeye anugu horta arrimaha siyaasadda aad baan horta uga yaraa ma garanaysaa laakiin madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay nagax shood haddaanu nahay dadka reer Somaliland xalay wixii aad nagu samaysay iyo wixii ciidankaagu nagu sameeyeen iyo dib noogu dhaceen haddaanu nahay dadka reer Somaliland ama waddanka iga taga dhawaxii reer Somaliland cidna yaanana matelin oon iskaga kaa baxayna saasaan anagu dowlad kulnayba marka intaasaan kaga baxay anigu waanu ku salaamayaa digniinna waxaa iga farmaajooy iyo intii la shaqaysaba qiimeyn ha ku sameeyaan dastuurkan ayaanay soo dhaafin clipka mar baan ku tusi doonaa haddii aad aragtayna waad aragtay waxaan ku uhi Muuse Biixow dadku ha kala kaxayn isaga laftiisaan la hadlay kan imika joogana waxaan leeyahay war shacabka ha kala kaxayn farmaajo ha kala kaxayn shacabka saan Muuse Biixi Muqdisho uga dhexleena ha kala kaxayn annagu keebaan la coloobina se keebaan la heshiina labaduba inay heshiisna la noqdaan baan doonaa dadkuna ay heshiiyaan waxaa imika isaga sharaf u ah dadka reer Somaliland ee joogay Muqdisho ayaa maanta ku dabaaldegay Muqdisho sababtoo halkaa waxa ka cadaanaysa inaan dadka kala maqnayn Muuse Biixi laftiisu wuxuu oranayaa dadkaaga sida loo qiimeynayo dadkaa kale u qiimey inta badan dadku waa cawda cabashadana dee adigu wallaahi anugu ma garanayo si wuxuu eegin siyaasaddana aada ugu maalmilmin wixii xalay aan doonayeyna waa laygu soo dilayba anigu Somaliland baan doonayay imikaynantan dhinacayga fadhida waxaan u malaynayaa dee dhibka u badanay gaadhay iyadaa sheegi doonto laakiin anigu waxaan ogayn horta inaan isweynay meeshan aan wada tagnay aniga iyo iyada iyo qaar kaloo badan iyo weliba malaayiin dee qof aan hayno dadka reer Somaliland dad la koobi kara maaha demokrat dad aada ugu fara badan baan meesha ku tagnay meeshana waxaan ku joognay badan dhalinyaro metelaysa reer Somaliland jaaliyad ahaanna waan ku tagnay Muuse Biixina waxaan tusinay dadkiisu meel kastaba ha joogaan in qarannimadiisa iyo dowladdiisa iyo dadkiisu meel kastaba joogaanba ay qiimeyntu qarannimadu qof walba guudka ka saarantay idigu waxaa maqasheen guudkan ka weydaayo annaga qarannimada guudkeen naga saarantay waddankana sidaan wax u qaybsanno waan naqaanaa farmaajona waxaan leenahay nagax shood baan leenahay farmaajo haddaad nagax shoon weydana waxa weeye anugu horta arrimaha siyaasadda aad baan horta uga yaraa ma garanaysaa
laakiin madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay naga xishood haddaanu nahay dadka reer somalilan xalay wixii aad nagu samaysay iyo wixii ciidankaagu nagu sameeyeen iyo dib noogu dhacen haddaanu nahay dadka reer somalilan ama waddanka iga taga dhawixii reer somalilano cidna yaanana matelin oon iskaga kaa baxayna ya saasaan anagu dowlad kulnayba marka intaasaan kaga baxay anigu waanu ku salaamaya digniinna waxaa iga farmaajooy iyo intii la shaqaysaba qiimaha ku sameeyaan dastuurkan iyaanay soo dhaafin anoo ku bilaabay magacayga Habiib Muuse Maxamed waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dhibaatooyinkii jirdilkii xumaa ee xalan soo gaaray ee foosho xumaa anagoo run ahaantii faraxsan oo ku faraxsan 18 May xuskii inaan xusno calankayga quruxda badan leh aan aad iyo aad ka jecelnahay horta saas ay aad inoo suurtagal weeday waxay noqotay dhalinyarta maxay tolay reer Banaadir namba reer Muqdisho wayna la dabaaldegayeen inuu gala faraxsanaayeen saas ay ahaatay waa lagu horiyay waxa ku horiyay ciidanka farmaajo oo ciidan uu soo diray oo markaas gadaal uu ku soo diray markii horena loo ogolaaday hadana bacdi gadaal uu ku soo diray markaas anagu waxaan ku balansaneen ilaa hotel inaan macnaha ku qabsano xalfad oo aan waqti ku qaadano farxad joog ku qaadano kabacdi saas ay ahaatay waana laga qasay anagoo qarash soo gelinay soo dhisnay macnaha u soo diyaar garoonay farxad inaan qaadanayno calankayga quruxda badan leh aan jecelnahay oon ku soo libisnay saas ay ahaatay askartii waxaan kala kulanay inay calankii quruxda badnaa ee tawxiidka ku qornaa xitaa kama xishoonin way ku joogsadeen hortayada ay ku tuureen macnaha way ku tunteen oo kaandharka aan xidhnayn istaanta noo aan xidhnayn heer ay gaadheen waan ka bixinay halkaas isku qaawinaysa saas ahaa waan iska dhaafay kabacdi markaan qaawinaysa aan ku dhahay waan macnaha maxay tolay adee dharkii aan iska xidhnaaday kama bixin karaan markaas meeshii baa aaday oo waxaan ku dhahay xagan galiyaa heer waxay sameeyeen intay soo halka ay ka soo mareen dhan qof Soomaaliland meesha ma joogi karo macnaha wixii Soomaaliland guryahooda ku laabteen markaas anigu waan diiday mana laabanaya ku dhahay inay maxna halkaas aan joogaya xeebtida si joog ku qaadanaya hada farxadii iyo joogi kale ay ka qasteen saasaan ku dhahay way diideen macnaha qoriba ay soo qaateen xitaa ay ugu fureen ay ugu dhahay waan ka dhex saaraynaa meesha calanka ku sidatay maxaad mooyay af Soomaali aad u khaldan oo aan ka sheegi karin oo wallahi markaan soo xasuusto ay xitaa ii cabaysteen qoriga ugu dhaw ugu dhufanayna macnaha anigu waxa dhahay markaas calankayga quruxda badan leh hadii aan u dhimanayo igu dhufta baan ku yiri kan ma bixinayo waan ku dhimanayaa baan idhi oo ku dhimanaya ma bixinay laakiin kan watay aan gacmaha ku watay way iga qaadeen ki dharka ay ahaa bas baa ay soo hadhay kaasna way anigoo hadana 60 ii galayaan way ugu joogjoogsadeen ki kala dhulka ku daadiyeen marka wallahi xalay wuxuu igu dhacay ma ilaabin aad baan ugu waxa saa noo galeena farmaajo wuxuu soo diray oo ka dambeeyay bay ahayd anaga macnaha madaxda hawiye xitaa qayb ay naga lahayd ma sha Allah si wanaagsan baan ugu hambalyeynayeen alxamdulillah waan taageersanahay anagu hadaan dhalinyarta reer Soomaaliland boo shacabka reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland halkan jooga aan nahay waxaan macnaha hadii arinteeda laga hadli waayo ambaba raali gelin laga bixin waayo garab baan muujinayna waan isku tagaynaa wadankoodana waan uga baxaynaa hadii saan noqoto macnaha fahanteen markaas banaan wax baa sameeynaa ambaba moodo wadankooda uga baxaynaa wadankayga quruxda badnaaba ku laabanayna run ahaantii aad baan u xareysanay wallahi maanta waan salaamaya bismillaahi raxmaani raxiim aniga horta magacaygu waa Sharmaaka Salmaan Cali waxaan halkan ka muujinayaa ama halkan aan ka cadeynayaa warbaahinta madaxa bannaan aan u sheegaya wixii xalay tolina soo gaadhay anagoo diyaarsan farxadeeda noo gaarka waxa wadankan aan la nimi dadku hadday wadaagayaan waxa weeyaan wixii dadku ay wadaagayaan in la isku tixgeliyo anagu dowladii hore iyo dowladda nimanka qiimeynteedu isugu mid nooma aha sababtoo wixii xalay nagu dhacay baa noo cadeynay inaan isku mid ahayn taa waxa keenayna waanu aragnaabo dee xalay anagoo farxadeeda u diyaar garoonay horena u qabsan jirnay iminkana haddaan warwar qabno nin og in dhibaato soo gaadhayso dhib ma doonaya oo maya jawaabto waxa weeyaan haddaan meesha anugu dhib ka ognay qofna dhibaato cagiisa kuma doonto meesha waxaa ka dhacay wax aada u cajiib badan feer jilib jeqel qori dabadii waxa nalagala xishooday may jirin anuu qadiyadayda iyo qarannimadeydaan muujinanay garbahan oo dhan baa nalaga jijabiyay haddaan ragnay dumarkana maryaha lagala baxay nalagama xishoon waana lagu joogjoogsaday
calankii iyo wixii aanu sidanay iyo tawxiidkiina dhulkaa lala galay marka annagu dee qadiyadayda iyo qarannimadayda meel kastoo aanu joognaba waanu ka muujinaa daanu reer somaliland nahay anaga waxba nagama gelin dadka dowladda ku jira soomaaliya soomaaliyana waxaan anagu wax kula wadaagnaa maaha maamul goboleed saami qaybsi dastuurka soomaaliya ku jirta in somaliland aanu waddan ahayn laakiin ay wax kula qaybsato qaab waddan dastuurka soomaaliya ayay ku jirtaa ka soo eega anagu ma lihiin puntland mana lihiin jubbaland hadaan maamuladaanay dee maamuladaasaan heerkooda la xisaabin lahaa laakiin heerkaan wax ku qaybsanaa ah heer caalami oo dib u eegid baa ku qoran somaliland dib u eegid baa saaran markaa qarannimadayda waa muqadis meel kastoo aan joognana waanu ku dabaaldegnaa anugu shaqsi ahaan intaan halkan joogay laamiga taleex baan ku qabsaday xitaa anugu keligay qarannimadayda muujinaya shacabku isma diidanaa xitaa somaliland waan la hadlay madaxweynahayga muuse biixi waan quudhay clibkaa mar baan kutusi doonaa haddii aad aragtayna waad aragtay waxaan ku uhi muuse biixow dadku ha kala kaxayn isaga laftiisaan la hadlay kan imika joogana waxaan leeyahay war shacabka ha kala kaxayn farmaajo ha kala kaxayn shacabka saanu muuse biixi muqdisho uga dhexleyna ha kala kaxayn annagu keebaan la coloobayna se keebaan la heshiina labaduba inay heshiisna la noqdaan baan doonaa dadkuna ay heshiiyaan waxaa imika isaga sharaf u ah dadka reer somaliland ee joogay muqdisho ayaa maanta ku dabaaldegaya muqdisho sababtoo halkaa waxaa ka caddaanaysa inaan dadkii kala maqnayn muuse biixi laftiisu yaa wuxuu odhanaya dadkaaga sida loo qiimeynayo dadkaa kale u qiimey inta badan dadku waa cawda cabashadana dee adigu wallaahi anugu ma garanayo siay waxu eegeen siyaasaddana aada ugumaan milmin wixii xalay aan doonayeyna waa laygu soo dilayba ya anugu somaliland baan doonayay imikaynantan dhinacayga fadhida waxaan malaynayaa dee dhibka u badanay gaadhay iyadaa sheegi doonto laakiin anugu waxaan ogayn horta inaan isweynay meeshan aan wada tagnay aniga iyo iyada iyo qaar kaloo badan iyo weliba malaayiin dee qof aan hayno dadka reer somaliland dad la koobi kara maaha demoqrat dad aada ugu fara badan baan meesha ku tagnay meeshana waxaan ku joognay badan dhalinyaro matalaysa reer somaliland jaaliyad ahaanna waan ku tagnay muuse biixina waxaan tusinay de dadkiisu meel kastaba ha joogaane in qarannimadiisa iyo dowladdiisa iyo dadkiisu meel kastaba joogaanba ay qiimeynta qarannimadu qof walba guudka ka saarantay yaa idigu waxaa maqasheen guudkan ka wadaaya annaga qarannimada guudkay naga saarantay waddankana sidaan wax u qaybsanno waan naqaanaa farmaajona waxaan leenahay naga xishood naga xishood baan leenahay farmaajo haddaad naga xishoon weydana waxbaa waxweeye anugu horta arrimaha siyaasadda aada baan horta uga yaraa ma garanaysaa laakiin madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay naga xishood hadaanu nahay dadka reer somaliland xalay wixii aada nagu samaysay iyo wixii ciidankaagu nagu sameeyeen iyo dib noogu dhaceen hadaanu nahay dadka reer somaliland ama waddanka iga taga dhawaxii reer somaliland cidna yaanana matelin oon iskaga kaa baxayna ya saasaan anugu dowlad kulnayba marka intaasaan kaga baxay anigu waanu ku salaamayaa digniinna waxaa iga farmaajooy iyo intii la shaqaysaba qiimeyn ha ku sameeyaan dastuurkana yaanay soo dhaafin